الحمد لله غافر الذنب والزلات، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وآمنه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan walaalaha muslimiinta waan salaamaya meel walba oo ay joogaan. intaas kadib waxaan rabaa inaan kalimaad kooban la wadaago dhammaan walaalaha muslimaadka kuwaas oo aynu ciwaan uga yeelnay ilaa matal ghaflah, ilaa goorma ayaynu ghafladan ku sugnaanaynaa, ilaa goorma ayaynu ghafladan ku jiraynaa. ukhti muslima, ilaahi tabaaraka wa tacaala waxa uu leeyahay اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. waxaa soo dhawaaday dad la xisaabtamidoodii iyagoo dadka xisaabtoodii soo dhawaatayna ay moogan yihiin oo ay ka jeedsanayaan. haddaba haddii aynu aayadan u fiirsanno waxaynu arkaynaa inay si toos ah u waafaqayso waaqaca dad badan oo inaga mid ah, iyagoo ka jeedsanaya badankoodu manhajka ilaahay tabaaraka wa tacaala, iyagoo oo moogan iyo aakhiro iyo wixii loo abuurayba. kaanamaa waxaad moodaa inaan looba abuurin cibaado iyo tawxiide, loo abuuray iyo adduunyo dhaldhalaalkeed, ilaa uu arinku ka gaadhay badankooda inay kaba tagaan wixii alla uu abuuray tabaaraka wa tacaala bisababi iyagoo eryanaya oo ku mashquulsan adduunyada tan ee dhammaanaysa. ilaahay waxa uu leeyahay tabaaraka wa tacaala yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wahum can alaakhirati hum gaafiluun. waxay garanayaan badankoodu muuqaalka guud ee adduunyada oo keliya oo macnawiyaadkeeda fahmi maayaan buu rabbi tabaaraka wa tacaala leeyahay, aakhiro dhankeedana waa ka moogan yihiin. ukhti muslima, haddaba bal u fiirsa intan maxay tahay sababta duufaanada loogu qarqiyey qowmu nuux, ee badda loogu qarqiyey fircawn iyo ciidankiisa? maxay tahay sababtii dabaylaha loogu saliday reer caad, ee reer tamuud loogu diray qaylada, ee qowmu luud loogu saliday roobabka dhagxaanta ah ee korkooda iyo hoostooda loo kala gediyey? maxay tahay sababta qaaruun dhulka loola gooyey ee qowmu shucayb qaylada iyo roobka naarta ah loogu diray? alaysat hiya adunuubu walmacaasi, miyayna ahayn wixii ay gacmahooda ku samaysteen ee dembi iyo macsiyaha? nacam wallah, ilaahay waxa uu leeyahay tabaaraka wa tacaala fakullan akhadnaa bidanbih faminhum man arsalnaa calayhi xaasiba waminhum man akhadathu sayxa waminhum man khasafnaa bihi alard waminhum man agraqnaa wama kaana allahu liyadlimahum walakin kaanuu anfusahum yadlimuun. ilaahay waxa uu leeyahay qolo walba waxaan u qabanay dembigoodii, kuwaanu qaylo ku dirnay iyo kuwaanu dabaylo u dirnay, kuwaanu dhulka la goynay iyo kuwaanu bada ku qarqinayba, iyaga unbaa naftooda dulmiyey, ilaahay cidna ma dulminin buu leeyahay tabaaraka wa tacaala. intaasi waxay tusaale inoogu yihiin cuquubaadka macaasida. intaasi kadib alla waxa uu inoo furay albaabada towbada markii ay dembi kaa dhaco ee aad macsiyo gasho, ilaan macsuum matiida qof bashara baa tahay, ilaahay waxa uu ku furay albaab towba ah. وحاو الله تبارك وتعالى كل حديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أدوما ذي واد كفيسان واد قلدميسان هبين يا معلم با أنا ولا ذنبي قدمانتي وان دافاي ذنبي دافو يديس تساني دينكو ذنبي دافو. ولذا ولا شيء مسلمة داهي وحلقا باهي هي إن الله دقال أنت نفتا ذي شيطان كالبضبا محايا لألا وحوليه تبارك وتعالى إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الله تبارك وتعالى مركلنا وحوليه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومركك وبعده الشيطان كدتك عدو بوئيه ولبعد، ومركل بعد قفك كعب سديس هرتاج ربي نفتي سنكرب وحي تعيش شهواته جنة يا أماوي أهو يا ربي تبارك وتعالى ليه. أختي المسلمة نفت هذا نارتك إلى أديكو سمين يوحي الله كأمري إسلام كان كتجي يوحي الله كاربي أديكو كدق ما يسون رسولك صلى الله عليه وسلم ويا الله وحوليه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحي رسولك إذن أمره وإذن سياقاته وحي إذن كريبنا كتغا. naftaada naarta ka ilaali adigoo cibaadada alle u khaalis yeelaya, adigoo salaadahaaga waqtigooda dhowraaya, maxaa yeelay waad garanaysaa fadliga salaada la ilaaliyo iyo weliba cuquubada salaada laga taga labadaba. waa waxa uu horeeyay adoonka laga xisaabiyo, haddii aad hagaajiso waad badbaaday oo liibaantay, haddii aad xumaysana waad khasaartay. naftaada naarka ilaali adigoo soonkaaga dhowraaya, cudurdaar la'aanna aan ka tegahayn, adigoo xajka soo gudanaya goortii aad awoodo iyo adigoo maalkaaga ka sakaynaya intaba.
naftaada naarka ilaali adigoo ka fogaanaya xijaab la'aanta iyo isqaawinta maxaa yeelay xijaabku waa dhowrsoonaan waa dahaaro waa iimaan waa xishood iyo asturnaan intaba rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay sinfaani min ahli النار لم أرهما بعد وذكر منها ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها رسولك عليه الصلاة والسلام وحاولين وصفين يا أي بكم إذا لبقى يبوض رسولك ليه وأهل النار وجنة قريمايان وحكم إذا رسولك عليه الصلاة والسلام دمر درحلا هدنا قاون فكيف ودمر در خفيف حرا وحبنه ذي لقاركايو ودمر در كل جن حرا وحبنه ذي سويرايا ودمر در كجابن حرا وحبنه ذا برموقدان ودمر مدحود يهيب رسولك عليه الصلاة والسلام ليه هاي سيدا لما مضح أوكاله كي إلهي وابوري تبارك وتعالى يميت كلا يوقع مهوذا كسمي سنيان والعياذ بالله أختي المسلمة برارك أو نفط هذا نار كيلالي ما دام وأره قعنت هذا كتر هذا محايا لألا وحو ليه أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ألا ضيع ما يبو ليه هاي عمل متكين سميستي لبي يرديكو دونها هذا سيدا درادة ألك هوجين مايو كان ضيع مايو وحي الهور مرسطو يا أضيب نفط هذا wax wanaagsan u horumari waxaan kelmadayda ku soo koobaya ogsoonow gabadha muslimada ah waxa aad tahay qof aad u qiimo badan sida ay diintaada ku sharaftay ay ku qiimaysay hadii aanad adigu iska dhigin wax raqiis ah oo jaban أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياك وجميع المسلمين لما يحب ويرضى وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.